بسم الله الرحمن الرحيم. hooyo ilaahay ku galadaystay saddex wiil oo caruur ah qaangaarka kadib way u guurisay kala waqtigaba socdo hooyadii waa gabowday gabowga kadib hooyadu waxay ku fikirtay wiilasheeda mid ka mid ah gurigiisa inay hooy ka dhigato laakiin waxay kaloo dareensaneed hooyadu in arrinka ay ka horeyso imtixaan inay ka qaado xaasaska wiilasheeda siday ugu aaminto nafteeda iyo maalkeeda waxay ku bilowday wiilasheeda midka ugu weyn habeenka ugu horeysa way u tagtay gurigiisa way seexatay waxaa la gaaray xilli salaada marka hooyadu waxay dalbatay weyso sidii salaadeeda u gudato markay weyse qaadatay weysada biyaha weysada qayb ka mid ah waxay ku shubtay furaashkeeda markaasay u yeedhay xaaska wiilkeeda markaasay ku tiri hooyo waad iska ogtahay aniga waan gaboobee dee markana ma xajsan karee kaadida xalay baan furaashkii ku kaajeyo waxaan jeclaan lahaa inaad iga hagaajiso kolkay saa u eegtay bay ku tiri aniga gurigan uma joogo inaan kaadida masmasaxo oo hagaajiyo maanta way dhacdeen mar kale ii dhicin markiiba hooyadii go-aan ay qaadatay oo guriga way iskaga soo tagtay wiilka labaad kan weynaa midka ku xiga gurigiisa ama hooygiisay ku hooyatay sidii bay samaysay macal asaf xaaska labaad way guuldaraysatay laakiin xaaska labaad waxay xaaska koowaad dayrayd way ceebaysay wiilkeedii ku sheegtay waxay ku tiri hooyadaada waxay samaysay ma la socotaa hee maxay samaysay hooyadaada furaashkeeda bay xalay ku kaadisay go-aanay gaadhay wayse ka soo tagtay wiilka saddexaad xaaskiisa hooygiisay timid sidii bay samaysay markaas ayay tiri hooyo dee furaashka xalay saabaa dhacday oo hagaaji markaasay tiri hooyo adiga hooyadiina tahay markaan anigu bayareen sidaad noogu soo dulqaadatay baan aniga diyaar kula ahay inaan anigana sidoo kale kugu dulqaato waxba ma ahee la joogaaga iyo guriga inaad adigu joogto ba aniga waxba nala ah dulooda aan sheekadan mise qisadan usoo qaatay ayaa ah guriga mar walba wuxuu ku dhisan yahay xaaska wanaagsan soomaaliduna waxay ku mahmadaa ninkaa naag fiican weligaa ma gaartid. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.